السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أبو عدنان إسماعيل حرسي قاعد مفرن قلب فرن كسود هذا هي برنامج نرص الشرمركة. وحالي راها أنت برنامج قلين وحالي راها إن شاء الله وحن شعلها إن أنا لو صاروا بيش كان كلها هي يوتيوب كعدنان إسماعيل حرسي. وحالي راها سكرب إن شاء الله وحن كهضينا شوفة وكلمة سوق أبي شوتس جيماينشافت فور الجيماين كريدت سيشرون taas oo macnaheedu markaan xisaabiyo difaaca amaahaha guud yani wax kasta oo as leedahay ama wax ku iibso hadhow tole markaa mesela qof deena ka qaatid inaana deenka siin karin oo kale oo Soomaaliya wasalaam war bishan ma hay war waxaas laakiin jarmalka waxa ma ka socdo hay-adan bay samaysteen oo shuuf la yiraaho taas oo u dhaxaysa dadka waxa la yiraahdaa shirkadaha leh iyo waxa la yiraahdaa shacabka si aan loo ogaado qof kasta oo shacabka maanta haduu shiraab bankiga qabo saa loo kala garanayaa ka wanaagsan ee waxa la yiraahdaa lacagta bixiya oo toos u socda iyo qofka aana waxa la yiraahdaa lacagtiisa aana bixin oo waxa la yiraahdaa musuqmaasuq iyo waxa la yiraahdaa fasahaad iyo dadka intuu xanibo caqabad ku noqdo oo dhibaato u geysto saa loo kala garanayaa marka waxa keentay shuufada inta loo sameeyo si aan dadka loo kala shaandeeyo kii wanaagsanaa wax la siiyo kii xumaana naxanibo markaan ka soo qaado mesela imika aniga guri baan deganahay fatraag baan kahrabad baan bixiyaa bishii fatraag baan saxeexay waxa la yiraahdaa fatraaga markaan saxeexay faatuuradii baa timi sanadka ugu dambeeyay marka timi lacag badan baa igu yimi waanu tagay waxaan ku ruwaniyo lacagta aan ma bixin kari waxaan rabaa bal ayr bixiyo waayahay bay igu yiraahdeen dhib ma laha waan ka caawinaa bishii bal 16 iska soo bixi 16kii kale aan nimanka kaliishi tii hore anigu lahaaba mid kalena sii galay okay taa markaan sii galay waxa la yiraahdaa haddii bixin waayo de kahrabadu markii waxay qabanaysaa report ka dhigaysaa maxkamadda markii ka dhigtana systemka shuufada ayaa lagu gelinayaa hadda waxay ku noqonaysaa calaamad qofkani qof wax lagu aamin karo maaha haddaan tusaale kale inay soo gudbiyo oo de tusaalaha Soomaaliya oo dhan baa jarma ku dhaqanta wiil baa wuxuu iska imanayaa jaamac la yiraahdo kala ka soo qaad wuxuu qabanayaa shirkadda telefoon wanaagsan buu ka qaadanayaa wuxuu oranayaa bil kastaba lacag yar ayaan siinayaa fatraag buu la saxeexayaa markuu 4 bilood 5 bilood uu wado ayuu lacagtii uu ka jarayaa khali wali buu oranayaa hadduu doono telefoonkiisa qof kale ka sii gadaya qof iska siinayaa oo hadii shirkad barito shirkad kale waxa la yiraahdaa ka qaado telefoon ila tii hore waa bixin waayay shirkad kale oo mesela Vodafone ayuu qabtay wuxuu ku yiri telefoonsi oo ayaa lacag ku leh shirkadda Auto waxa la yiraahdaa sidee Vodafone oo garan kartaa ninkan inaan lacag lagu lahayn amba fatraag aanu ku jirin waxa lagu garanayaa shuufada la weydiinayaa shuufadu waxa leedahay marka ninkan jaamac waxa la yiraahdaa adeer Auto ayuu lacag ka qaatay telefoon ayuu telefoon ka qaatay telefoonkiina waxa la yiraahdaa lacagtayda ma nasiyo okay waxa la yiraahdaa dhibaatada hadaba ay leedahay shuufadu qofka shuufadu hadaa gashay systemkeeda oo report xun laga qoro waxa la kulmi kartaa caqabadaha ugu waaweyn la kulmi kartaa waxay tahay number 1 waxa la kulmi kartaa mesela haddaan soo qaado waxa sir guri kareyso oo gurigii hore kiradiisa ma bixin jirin waxyaabana ma bixin jirin qof qaylo buuq iyo dhibaato badan baahay qof bila akhlaaqnimo ayaa lahayd systemka ninka guriga ka kartay systemka waxa soo dhan uu galiyo qofka waxaan guriga uga saaray amba guriga ugu eriyay waa qof saas karama bixiyo waxa ma sameeyo marka waxay noqonaysaa ana intaanu qof kasta oo jarmalka jooga haddii saa guriga ka karayso inaanu guriga ka kareen caqabada labaad la kulmi kartaa in shaqo wanaagsan inta heshay shaqada wanaagsan shaqooyin baa jira ka dalbanaya shuufa annaka shuufada soo jeedina waxa tahay waa saxday shuufadii waxa ninka deen baa lagu leeyahay kira ma bixiyo waxa la yiraahdaa telefoonada lagu leeyahay lacagtiisa ma bixiyo waxa la yiraahdaa shaqo hore yani reportka noloshaadii oo dhan ayaa waxa la yiraahdaa shuufada ku jirta caqabada ugu weyn hadaba imanaysa waa maxay waxa weyn maanta dad sahay baasaboorkaaga weyn xareyso oo amba kii casaa amba jinsiyadda in ay caqabad ku noqoto shuufadu caqabad badan ku noqoto oo hadhow la yiraahdo qofkani ma istaahilo marka waxa noqonaysaa inaan sharciga weyn ku siin saan u garanayaa inaan ahay qof wanaagsan amba qof xun
oo systemka waxa igu jira shuufada amba daadiga igu jira shuufada inaan ahay qof waxa la yiraahdaa wanaagsan sanadkii xaq baa u leedahay ina warqad ay ku siiyaan cadeynaysa ina waxa ay maanta report ka yaala laakiin waa ina codsataa website ba insha Allah imka galina website ka soo codsanaysid iyo waxa la yiraahdaa sida information ugu helisid iyo sida waraqaha ugu soo dirayaan waxa soo dhan insha Allah ku soo dhawaada gacmo furan qadba furan waxa la yiraahdaa marka ugu horeysa waxaan gelinaa Google-ka waxaan qoraynaa Shufa waxa la yiraahdaa kabacdi xaga ugu horeysa ee ku qoran tahay original Shufa xaga san gelinaa kabacdi page-kaas ay noo soo baxaya waxa la yiraahdaa marka page-kan buu keenay ilmo waxaan taabanaa meesha ay ku qoran tahay datum copy nach arts 15 ds gvo marka waxa aan geeyo aan taabto wuxuu nageenayaa meeshan laba jeero laba meelood kala dooro buu ku leeyahay amba waxa la waa mayna Shufa compact amba dooro waxa la yiraahdaa datum copy waan u baahanahay datum copy-ga ayaan inoo korobna meeshan calaamada x ka ku qoran tahay ee casaanka ah kabacdi waxaan taabanaynaa yet bestelle markaan taabano xagan buu ina keenayaa marka imka waxaan joognaa meesha macluumaadkaaga ka buuxinaysid magacaaga iyo magaca familiga marka calaamadaha aragtid x-ka ku qoran tahay calaamadaha agteeda ah taas waa qasab inaad buuxisid waxaana calaamada lahayna ma hayna buuxisid طبعا meesha ugu horeysa waxa weeyaan nin baa tahay mise naag Frau Auman kabacdi waxa la yiraahdaa fornaama magacaaga hadda tolina waxa la yiraahdaa nakhnama magaca familiga sidoo Osfees kugu qoran yahay waxa la yiraahdaa hadhowna gabuur statum waxa la yiraahdaa xiliga dhalatay taariikhda dhalatay kabacdi waxa la yiraahdaa waxa qoraysaa email-kaaga email address marka waan wadana insha Allah marka waxa la yiraahdaa marka waxaan maraynaa qaybtii address-ka amba cinwaankaaga address-ka iyo shaaraca deganta istiraashada iyo numberka guriga house number iyo postal post cell iyo faraha magaalada iyo ort magaalada aad degan tahay iyo hadda toona land waa dawladda yani ma Mareykan ba ma Jarmal ba ilmo meesha joogtid ba ayaa qoraysa marka imika waxa liiga baahan yahay inaan xagan ku rido waxa la yiraahdaa Osfeeska iyo passport-ka aan haysto sawirkoodii marka ila soo insha Allah saasan imika u diraynaa number 1 waxaan gelinaynaa copy diese personal Osfeeska طبعا marka hore suurad baan ka qaatay oo computer ku jirta waan galayaa meesha ay ku jirtay waxa la yiraahdaa hadhow waxa la yiraahdaa waan gelinayaa insha Allah waa kaas malafkii waan ku riday xakaas oo soo baxay inaan geliyay waxaan galiyaa hadaba imika copy diese Osfeeska passport-ka waa kaas isagana malafkiisi amba file-kiisi saasan gelinayaa waxa la yiraahdaa kabacdi markaan inta dhameeyo meesha yare xuruufta ay ku qoran tahay baan aan koobi gareynayaa aan ku qoraalka ku qoran laftiisa baan xagga ku qorayaa markaan aan ku qoro kabacdi waxaan taabanayaa waxa la yiraahdaa Viter baan ku qorayaa kabacdi Viter-kaasi waxa la yiraahdaa markaan aan taabto Viter yani hore u soco haday wax ka saxsan yihiin saas uu igu soo baxay waa ka macluumaadkayga xagan ku jirta oo dhan hadda toona absent yani dir خلاص saas ku dhamaatay waa intaas weeyaan insha Allah imka waraaqda insha Allah way imanaysaa waan sugayaa email ahaan insha Allah way igu soo dirayaan hadhow waan ogaanayaa inaan ahay qof
waxaa la yidhaha shuufada nadiifka ah darajadee baan haystaa digriigee bay siinayaan ma qof wanaagsan mise qof xun markaa saasaa loo codsadaa insha allah waxaan jeclahay qof kastaba oo maalan telefoonaad amba waxyaabaha kala xiriiro insha allah oo xaggaa ka ogaado intuu malafkiisu amba faylkiisu jarmal dhinaca diinta uu nadiif uu ka yahay إن شاء الله هذا ما حسيتين كل جين إن شاء الله أنا ترى وحسينا يا نظير الصومالي قبل الصومالي أشرم كتشوجا هذا أنا كاش هيسن وقشيت بحالي أما وحاول ناسم مركز الصبا إلى أما هذا توش بالسعودية هذيك العقبات عيني شيء أنا هوري ما نيسا نلاش هذا دبعت بدن بالله كل ما يساعد تقولي مركا خير ما يرجعني يا وأنا وعدنا نسمع الحرسي إن شاء الله وقت كلام نسألك دونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.